السلام عليكم. أسبوعا وحال يسوف على تكنولوجيا مسكح يولي بمفكر نمو فانك الصوماليات ماشي ومريان إذن كده بجين دونا هدية أنو عصبتها برامجك إنه قرحي الله إنه صار سبسكرايب تاع هذا وقلبنا يقول شرف كوشو لوادا برامج كيف فافازي بعد هاي واحد ما تينو وذا برامج أنكو فيرين دونو فك الصوماليات مادام مع كان قيبته فنيجا يقصلك يأكل حاجة هالك كل إيراني برامج كي كربستاج النيرة الصوماليات ميشنس كالنيرة السراكيش قيبته تيك توك قابل سريت ولي ميشنس كودا ما هي وحنو مالنا النيرة يكون مقيين وحباي سواء إن ضد بينو صودان برامج دي قصلك عمرك وحير ما كنا سينا ما تي وحن فيرينا برامج كي أها لك يفنكا أسبوع على حال سوف عني لسوء أو تشكتي باورفول فكرة مفكر نمو muuqaal waxaan maanta dul istaagi doonaa ama aan fiiri doonaa saddexdii muuqaal ama saddexdii hoosood ee ugu muuqaalka qurxoonaa la isugu faanay awood la isugu sheegtay bardhow fanka Soomaaliyeed wuxuu noqon doonaa sidii fanka caalamka kale in tixgelinta koowaad la siiyo muuqaalada dhalinyarada hadeer qaabka ma taqaanaa background-nada iyo directorada soo baxay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay fanka Soomaaliyeed meel bad u wadaan waayahay heesii isbuucan soo baxay aadka loo qiimeeyay muuqaaladan aadka looga helay intaan ugu gudgalno horta waxaan rabaa ninkii la yiraahdo Guulaysimba heestii ugu dambeysay uu soo qaaday dabcan heestaas waxay ahayd another level sababtoo ah iyadoo sawir kaliya saaran yahay dhageysi ay tahay bay muddo 1 week ah hadeer 2 week iska dheh waa 2 weeks 2 million muddo maqnaa macnaha xataa soo laabasho adag ma sameyn fanaanku markuu muddo sanad ama qan yahay waa inuu hal mar shan heesood oo kale ma taqaanaa waa inuu degdeg macnaha awood la inuu ku soo laabto marka isagoo xataa aan laga filanayn shoor oo si sameyn media xabaar ka maqnaa hees dhageysi oo isaga soo tuuray in ay 1 week 1 million gaarto oo 1 week 2 million ay ku dhawaatay iyadoo 2 million gal rabto week labaad baa la gaaray Guulaysimba waxaan leeyahay wareystas muuqaal bi xaq u lahayd heestas muuqaal bi xaq u lahayd guuleedo shaqo diyaar uma tihid heestas oo muuqaal lahaan lahayd score kale Soomaalidu u dhigi lahayd bal horta qaybta dhageysiga ninkaas ku fariireystay asbuucan waayahay heesii daawash muuqaalka ahaa ama fiidiyoyada ahaa officialka ahaa baleysto koobaad aynu soo heesta koobaad aan laga been sheegi karin ee soo baxday asbuucan ee aadka looga soo shaqeeyay xagga fiidiyowga markaan fiiriyo xataa qiimeyn qurux badan aan siiyay waxay ahayd heesta uu qaadayo fanaanka la yiraahdo Marwaan Yare dabcan fanaankan Marwaan Yare sida aad mar walba ku taqaanaan waa fanaan heesihiisu aysan badnayn oo fanaaniin waxa jira asbuuc walba mar hees soo saar ama labada asbuuc mar ninkaas uu aamusan yahay isaga iyo Guulaysimba cawaale aadanaysa oo aamusan yahay hal mar wax tayo leh turxaan bixin leh laga soo shaqeeyay fikir dheer la galiyay isku dheelitiran badan keena muuqaalka saad dalkaas uga jeedaan dhowr qaybood baa loo duubay heestan muuqaalka waxa duubay Hoso Bro oo ah nin YouTuber dabcan waxa moodaa YouTuberada markaan xogaha gacantooda inay fariisanayso heesaha qaybta duubista in ay la wareegi doonaan heesaha dambe ay idin soo wadana dhalinyaro YouTuber garanaysa ayaa duubay waayahay heestan muddo caan ahayd muddo TikTok ka socotay challenge hore loogu sameeyay in waqti badan waa la sugayay ودوني وحتركيسا يودنتيسا qofka dawad sida uu jeedaan marka heestan banaanka iyo gudaha waa lagu duubay drone iyo stand up camera wax walba waa loo adeegsaday dabcan waxaan dhigi karnaa muuqaalkaas heestaas kal iyo laba lagu fariireystay Marwaan Yare fankaaga inuu heerkaan marayo muuqaaladaadana qaabkan ay u duubayaan waxa tusaale u tahay dhalinyarada fanka jecel hadeer soo bixisa waayahay heesta labaad heestay way noqon kartaa ee asdhihi karno alla ilaahay kal ilaaba lagu shaqeeyay muuqaalkeeda dabcan waanina wada garanaysaan waa dawlad only maslax mideeye asbuucan wuxuu soo saaray hees la yiraahdo waa Guulaystay bal horta intiisan heesta bilowgeeda kaliya ee dhalinyarada aad ku qanciyay bal hal mar isla fiirino dabcan iyadana drone la adeegsaday saa u jeedaan muuqaal qurux badan bay ku bilaabanaysaa gaari ayaa soo istaagay waa muuqaalka dhalinyarada aad u qanciyay waa qaybtan
طبعا qaabkii heesta ku bilaabanayso waa ujeedaan waa qaabkaas ninkan la afduubay ee la soo garaacay ee la soo rafaadiyay ee dhiigaya ee meesha banaanka cidlada lagu soo tuuray qaybtan si qurux badan baa loo jiray si perfect ah baa loo jiray kaliya maadaama heesta intaa wixii ka dambeeya uu fanaanku ku haysayo meel caadi ah oo gudaha ah dharkiisana uu gashan yahay qaybtan xogaha in heesta lagu soo daro isagoo saan oo kale wadadan maraya ama geedaas ku dhex jira ama meel fadhiya oo heesta uu qaadayo inay ku soo daraan bay igula qurux badnayd laakiin se waxaan u maleynayaa waa nolol laga soo gudbay oo waan guuleystay ah oo uu noloshan usoo gudbay waa saa u fahmay marka laakiin video clip ka daan taageerayaashana anaga waxa aad noo gadmay video clip lagu bilaabay besti buu ahaa Maslaxmideeye heesta waan guuleysan waa ku fariireystay si professional ah ayaa muuqaalkiisa loo duubay dabcan waxaan dhigi karnaa another level laas ugu Maslaxmideeye mar walba waa muuqaaladiisu high class biska ayay si soo dhan hadda dib u raacid muuqaaladiisu iska high class marka heestii waan guuleysan ee Maslaxmideeyena waxay ahayd heestii labaad ee aan soo xulay ee aan isdhihi karno perfect bi asbuucan ahayd aad baan looga shaqeeyay waayahay heesta saddexaad inoo noqon kartaa toro Somali music to the wall. Ababa عشان ما بوعد مسام نقولوش sida u jeedaan waxa heestan director gareeyay Xasan Sooya hoosto baro hadaa heeseen dawra loo youtuber Xasan Sooya heestan director gareeyay Xasan Sooya waa director waa actor waa shaqul kulli wal bari wal bahri waa youtuber waa dictor wax adiga wax walba waa tiktoker wax walba waa fahad marka Xasan Sooya heesta Sharma Boy music ahaan erayo iyo waliba muuqaal kal ilaab ugu dhisnayd iska digin gaan adika la daan bush illa daan ma ku dhaha maxamed dino walid salama rastafara dimaharama this is my city Maslaxmideeye Marwaan Yare iyo waliba Sharma Boy waxaan dhigi karnaa waxay qaateen asbuuc qurux badan waxayna soo cimaamateen 3 video oo kal ilaab leh way jirtaa mid hees afraad baa jirta xataa gabar la yiraahdo Nasteexa Dayax oo ayadana muuqaal qurux badan laga qabtay aad looga shaqeeyay dabcan waxaan u maleynayaa Leo production inuu soo dhigay haddaan khaldaneen iyo waqal labadaas mid baa soo dhigay dabcan heesta gabadha xataa la yiraahdo Nasteexa Dayax iyadana muuqaal aad u qurux badan bay soo sameysay way ku fariireysatay dabcan kaalinta afraad baan sii karnaa hadaan sii wadno kaalin shanaad waa la heli karaa iyo kaalinta lixaad laakiin se barnaamijka sida uu soo nooga dheeraanin inaan intaas ku soo gabagabeeyaan jeclaystay fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay warfankii meeshu marayba u jeedaan sanadkaas maanta muuqaal wax gadmaya quality leh dadka hadaan loo iimaanay fanka mar walba hooseenaya insha Allah barnaamijkii intaasan ku soo gabagabeynayaa sidoo kale barnaamijkii TikTok gacanta gali aad badan kaga gadnay waa arkimiinskiina TikTok waa laba jibaar halkii daqiiqada 5 ilaa 4 qof ba emission gareynaysa barnaamijkii garab istaaga dhalinyarada saraakiishii shaqada hawshaas gacanta ku haysay ee dhalinyarada u baahan garab istaaga iyo emission gareyn jirtay barnaamijkiini waa taagan yahay barnaamijkiini waa diyaar mentionska dhalinyarada talentiga iyo emission gareeya waa yahay barnaamijka intaas ku soo gabagabeynaya haddii aan ugu cusub tahay barnaamijka noo qurxiyo loo inoo saar subscribe ta hadaan u qalmana igu sharaf ta kulmi doona barnaamij kan lamid ah ووزير كريم أقول اسمه ملك الصومالي سوشيال ميديا إذن له bush illa daan nin uma ekid ma ku dhaha maxamadane goormo noqdaytoonay gacanta bidix ma xitaa sida lagane aamus marka hadlayaa raga degane